dunida kubadda cagta waxaa ka dhaca dhacdooyin naxariis badan kuwa oo saxaafadooda ay si aad u buunbuuniyaan horyaalka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya heerarkiisa kala duwan waxaa ka dhaca dhacdooyin kale oo ka sii wanaagsan dhacdooyinka ka dhaca caalamka kuwa ay u badan yihiin ciyaar wanaag ama waxa loo yaqaan fair play kuwa oo inta badan aanu saxaafadeena soo bandhigin garoonka Stadium Muqdisho uu ka soconayo horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya waxaa ka dhacday arin la yaab leh oo sameeyay daafaca kooxda kubadda cagta ee Jeeyo Mahad Ibrahim Hilowle oo la yaqaan Mahad Ramos dhacdadan ayaa waxay la mid tahay dhacdadii uu ciyaaryahanka kabtaanka u ah xulka Denmark ee Simon Kjær uu ku badbaadiyay nafta saaxiibkiisa Christian Eriksen oo carabka la qigaaray Mahad Ramos ayaa arkay dhaawac halis uu soo gaaray saaxiibkiisa Xasan Cabdi Xasan oo lambarka 8aad u wata kooxda kubadda cagta ee LLBB Jeeyo ciyaartoydii kooxda iyo xidigii dhaawaca uu geystayba maysan dheelin fair play oo kubadda way iska sii wateen laakiin Mahad Ramos ayaa kubadda ka soo celiyay kooxda Raasan banaankan u saaray isagoo fair play dheelaya durbadiiba wuxuu u soo orday isagoo masaafo dheer u jira ciyaaryahanka saaxiibkiisa ee garoonka dhex jiifa ka uu dhulka gacmaha ku garaacay dareemayayna xanuun zaa'ida Mahad ayaa durbadiiba garsoorka ku canaantay sababta u joojin waayay ciyaarta maadaama ciyaaryahanku dhaawac halis uu soo gaaray ilaa ay kubadda isagu uu banaanka u saaray dhacdadan ugubka ayaa aad loogu amaanay Mahad Ramos maadaama kubadda ay joojin waayeen kooxdii ka soo horjeeday ee dheeli waayeen ciyaar wanaag ama fair play laakiin isaga intuu kubadda difaacay banaankan u saaray uuna badbaadiyay nolosha saaxiibkiisa oo xaaladda ku cuslaatay wuxuuna siiyay neef iyo waxyaabo kamida gargaarka degdega ay ciyaaryahanka loogu fidiyo garoonka gudihiisa wuxuuna degdeg ugu amray dhaqaatiirta inay soo galaan gudaha garoonka ee la tacaalaan xaaladda caafimaad ee ciyaaryahanka Mahad Ramos daaficii hore ee xulka kubadda cagta ee Jubaland ayaa kamid ah daafacyada ugu adag ee ka dheela horyaalka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya wuxuuna kamid yahay ciyaaryahanada sida aadka ugu dhex muuqda kooxda kubadda cagta ee Jeeyo dhacdada uu sameeyay ayuu ciyaaryahankan ugu qalmi karaa in loo doorto ciyaaryahanka ee horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya hadii la bixinayo abaalmarinta ugu sareysa maadaama uu sameeyay ficil wanaagsan oo ku badbaadiyay nolosha saaxiibkiisa Xasan Cabdi Xasan